كرام سؤال أهرسو قبل أي سوق قرتي وحيلا هاي عندها نبى سوقرين وحليها هاي قبل لقبة سنان لقبة أيان من كذي كفرتي كدبنا وأسكت تقني أور بيالتي كدب بنقول سوليها أيضا أور كله مركا حليها هاي محان سمين كرا قبلنا وان قبا هذا وان قرصدي لكن أيضا أور لا ينقرصدي أور كاسنا سجاس كله بمعنى نينكي هراء إسقبان أيضا أور كاس داعي مركا محان سمين كرا عنقيس حال كيس محن قان كرا سوالي واحد لا قبل بروح على جواننا هي نحمان تجوج أيضا لواننا ما واحد تري إيه نقصده ولا يفرده marka wixii caaw dhan laga hadlay ayaa hadda waxa bilaabatay covid waa mid ugu falxumayd waa ninkaasi runtii arintiis waa culusta dulmi dhowr dhinac buu ku jira ama uu galay faaxishadu markay zina kaligeeda tahay quraanku waad aragteen oo aad buu u weynay magaca ilaahay u bixiyeen faaxisha loo bixiyay faaxisha waxa la yiraahdaa waa shayga foolxumada meesha ugu dambaysa ka gaaray waa zinanimada waxa dheer nin walaalkii ah oo muslim ah oo xaq ku leh bal xuquuq ku leh buu gogoshiisii wasakhay ayaduna waa jariimo weyn laana way kala duwan tahay haweeney aan guri lahayn oo nin lahayn iyo mid nin leh way kala duwan yihiin zinadii baa kala culus iyadana culayskeeday leedahay mar kale culayskeeday leedahay oo inuu islaantii ka furtay ninkii ilaa hadda soomudii waan qabaa sooma macnaheedu waxa weeye ninkii hore qabay ayuu ka sasabtay oo ka furtay oo markuu ballaanka soo dhigayna wuu guursaday ayadana waa qodob kale oo guri inuu dumiyo oo ninka xaaskiisa kala hoos baxo ayadana waa jariimo weyn oo ka weyn xoolo la iska dhaco qodobka kale ta wax weeyaan uurkan uu ka hadlayo ee ninku intuu qabay yimid ilmahaasi alwaladu lilfiraash buu nabigu sallallahu alayhi wasallam haweenayda ninka qaba ee xaaska u tahay gogosha u tahay inta uu xarigiisu ku xidhan yahay waxay dhasho isaga iska leh allahumma inayna ka suuroobi karin mooyee sayna uga suuroobi karin maalan xilli aysan isaga u dhali karin bay kala maqnaayeen xilli ayna caadadiyo curfiga haweeneedu aysan muddada uur lahaan karayn ayay ilmaha ku dhashay caada ahaan suurtagal ma markaas oo kale inay dhashay waa ilma zina waay laakiin marba hadduu ka suuroobi karo alwaladu lilfiraash ilmaha waxaa iska leh ninkii islaanta qabay ee gogosha iska lahaa walilcaahiri alxajar buu nabi sallallahu alayhi wasallam ninka zaaliga ee reerka soo dhaxgalayna asaga dhagax buu leeyahay asaga abaalkiisa waa in dhagax la dhaco laakiin maanta dhagaxi ma hayno ninkaasi ilaahay toobada waa aqbalaa laakiin dunuub waa weyn buu galay sida uga bixi karana ninkii walaalkiisa gogoshiisa uu fadareeyo haleeyay sida uga xalaashan karo idinka ma sawiran kartaan yaa حق بني آدم واحد قرقي سيبو كقاتي قوشي سينا وكوسخيي انت أدوتك تمديه كرتا قوشي بعد ينكاوسخي رالي هو يعفي ننطور لطبو سعد السجا يقان هذا يكون تعالى لكن ميد بارنو كو شيء إلهي نوصل الله حوين إذا سيئات سيدك خلط كايسوكو تبادينا كو علي نكي دي بو علي هدو بقادره ilmaha warkiisa ka bax qodob
qodobka kale wuxuu yahay ninka walaalka ah inaad cafi weydiisato waa inta keliyata inuu ku cafiyo tii ilaahay iyo zinadaad gashay baab kale waay laakiin isaga dhankiisa xaqu lahaa inuu cafiyo unbuu ku dhici karaa haddaad tidhaahdo ma hortegi karo ama fidno ka weyn baan ka baqayaa anigu kuma dhihi karayo hawshaasi saasay ku dhammaan laakiin waxaa lagaaga baahanayaa cimrigaaga intaad nooshahay ninkaa walaalkaa inaad u ducayso bal wuxuun xaqiisii wax ka mid ah inaad gudi karto inaad isku daydo inahaas baan ka dhihi karaa waana runtii fasaad aad u weyn waay fasaad aan sahlanayn iyo dembi aad u culus waay wallahu aclam